الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ولي waxaan ku dhex jirnaa youtube keeni Sheekh Xasan Ibraahim Ciise waxaan kaga dhex mushaaxaynaa oo aan ku jirnaa qaybihii riyooyinka riyada xigta assalaamu calaykum Sheekh Xasan Ibraahim Ciise wa calaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh caafimaadkaaga iga waran sheeqow aadan u fiicannahay riyada in aan rabo in aad ii fasirto waxay tahay sidatan waxaan ku riyooday habeenada ka mid ah aniga iyo hooyo iyo wiil ila dhashay oo gurigeena banaankiisa fadhina waqti habeen ahna ay tahay kadib waxaa la igu dhahay samada fiiri kadib waan fiiriyey qoraal ayaa ku soo qormay waan akhrin waayey kadibna waxaan isdhahay telefoonka kaamiradiisa ku sawiro ama ku soo dhaweyso si aad qoraalka u akhriso laakiin ma samaynin waayo waxaan isdhahay waa dembi in aad telefoon samada ku aadiso kadibna hooyo ayaa waxay dhahday fiiri samada qoraal ayaa ku qorane markii aan fiiriyeyna waxba ma arkin qoraalkiina wuu tirtirmay hurdadiina waan ka soo kacay sheeqow ii fasir riyadan ilaahay ha ku xafido maxayna noqon kartaa waxaa laga yaabaa inay noqon karto arin ama ujeedo ama umuur ama muraad aad leedahay oo aad weyn doonto ama se kaa soo daahaya labada mid bay noqonaysaa samada oo wax lagu soo qoro qofka loogu qoro waa darajo sare laakiin inaad arki weyso waa wixii adiga aad u baahnayd oo markaa la waa adkaarta iska badsa insha allahu tacaala midda xigta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu sheikh khayr allah ku siiyo waxaan rabaa inaad ii fasirtid riyadan waxaan ku riyooday god madow mas madow ka soo baxaya kadibna canug yar oo qabsanayo afkuna gashanaya oo ilkaha ayuu ku googoosanaya subxaanallahi anna waan qaylinayaa nin agteeda fadhiya ayaa idhahaya iska daa waa irsaaqad alle uu u soo diray maskana saasuu ku dhimanayaa ayadan waxay noqonaysaa cadow qofka uu leeyahay weliba qofka riyada arkay godka hadduu madow yahay maskuna madow yahay weliba cadow aad u dhib badan ayaa lagu tilmaamaa waxaa dhici karta inuusan adiga wax ku gaarsiinin laakiin qof kuu dhow inuu dhibaato markaa gaarsiiya cadowga ilaahay baa laga magangalaa masaska iyo abeesooyinka waxyaabaha lamidka ah cadow qofku leeyahay baa lagu fasiraa midda xigta assalaamu calaykum waraxmatullah wacalaykum assalaam waraxmatullah sheekh khayr allah ku siiyo allahuma aamiin waxaan rabay inaad ii fasirta riyooyinkan wiilkayga yar oo 6 jir ah ayaa wuxuu idhahayaa hooyo waxaan ku riyooday gurigeena hilib iyo dhiig ka buuxo hilibka iyo dhiiga ka buuxo anna waxaan ku riyooday toor haddaan fasirno hilibka sidiisaba haddii ama waxoogaa yar isbeddel ku jiro ama ur yar ku jiro waxaa lagu fasiraa xan dhiigga haddii lagu dara iyo hilibkana waa la mid hilibka hadduu yahay hilib wanaagsan oo aan dhiig wadanin nadiifna ah risqi baa lagu fasiraa ilaahi subxaana wa tacaala dadka uu siiyey sida nebi ismaaciil ee aabbihii uu ugu duceeyey hilibka iyo biyaha ilaa ugaartuu soo dabi jiray laakiin hadduu dhiig dhex fadhiyo riyo fiican markaa ma aha waxaa dhici karta guriga xan in lagu sameeyo ama qofka inuu xan ku dhex jiro marka waxaa leeyahay ilaahay uga soo laabo una toobakeen anna waxaan ku riyooday bay tiri faliir yar ama jeed jabkiisa faliir yar ama jaad jabkiisa oo yar ama jeed baa ku qoran jabkiisa oo yar farta iiga jabay ama loola jeedaa faraanti jabka iiga jabay uu xanuunayo kadibna waan soo toosay wax yaroo imtixaan ah ama dhib ah oo qofka la soo gudboonaanayso ayaa lagu fasiraa taana ilaahi subxaana wa tacaala wixii dhib ah ilaahay ha kaa ilaaliyo khayr iyo wanaagana allah ku waafajiyo riyada saddexaad waxaan ku riyooday bay tiri anigoo saygayga dhahaya kaalay iqaad wuxuuna la joogay niman qol ayayna ku jireen asagoo macawis wata ayaa furaha la soo ordayaa wuuna kufay khayr allah ku siiyo
iisoo fasirtaana maxay noqon kartaa? waa xanuun baa la yidhaahdaa ama jiro, labadaba way noqon kartaa. teeda kale waxaa kaloo suuragal ah sida kufitaanka uu tilmaamayo, wixii adiga aad rabtay ama aad ka rabtay inaad weynayso ninkaaga ama saygaaga xaggiisa, wax dhib ah oo weynna ma laha riyada. midda xigta, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu. dhammaan reerkaaga waan wada salaamayaa, way kaa qaadeen. shiikh, waxaa jirta gabar aan isjecelnahay oo muddo wada soconay, reerkeedana aan ka doontay, waana la ii diiday. mabruuk. nin kale oo qaraabo yihiin ayaa la siiyey. anna waxaan ku riyooday markii arrintaa dhacday kadib ayadoo guursanayo, anna arooskeyga, iyadoo la guursanayo, anna arooskeeda aan joogo, aan oynayo, ayaduna way ooynaysaa. maasha allah. calaashaan waxay ii muujinaysaa inay ka xun tahay maadaama aan iscalfan weynay. markii la galbinayey oo gurigeeda loo wado, weli waa riyo, ayaan meel gooni ah aan la galay, kadibna hab ayaan siiyey, waan isku oynay, way ishumisay, laakiin shumiska qaraar ayuu ahaa. kadibna way baxday, ninkeedii ayaa kaxaystay, weliba xoog ayuu ku watay. ani intaan xanaaqay kadib ka daba tegay, sharta ayaan iska siibay, shaarka dheh ayaan iska siibay, kadibna ninkeeda dhex ayuu istaagay, anuu rabaa inuu iska keey celiyo, laakiin wuu baqay. markaan u soo dhowaaday, intuu cararay ayuu galay meel dukaan ah. anna waxaan ku iri soo soco hadda, rag haddii aad tahay. laakiin waxaa la yaab leh, riyada waa sax, laakiin gabadha teedii sax ma ahan, laakiin ayada ayay u eg tahay. fadlan jawaab wacan. wacalaykum assalaam waraxmatullah. gabadha mataqaana aa wada socoteen inaysan kuu suuragelaynin guurkiina, ama guurkiina mid dhacay inuusan noqonin, xaqiiqda cinda allah, taasaa ta'wiilkeedu markaa noqonayaa intii dagaal aad gashay iyo waxaasoo dhan marka la fiiriyo. midda xigta, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. shiikh, waxaa marar badan igu soo noqnoqda laba riyo. ta koowaad waxaan ku riyoodaa anigoo duulaya, mararka walba i ceyrsanayaan oo aan ka duulayo, aniga oo duulaya, mararka qaarkood waxba i ceyrsanaya oo aan ka duulayaa, ii daba socda, mararka qaarna keligay baa duulaya, guryaha dushooda, buuraha dushooda ayaan duulayaa anigoo faraxsan. waa riyo muddo badan idaba taagan. 2 habeen haddana arki waayo, habeenka 3aad waan arkaa. maxay noqon kartaa shiikh? khayr fara badan allah ku siiye. duulitaanka qofka dul waxaa lagu fasiraa intiqaal min xaal ila alxaal. xaalad uu ku jiro ayuu ka baxayaa, xaalad kaluu gelayaa. dhib hadduu ku jiray, wanaag buu gelayaa. haddii ciriiri jiray, fusxi buu u baxayaa. waxaa lagu fasiraa safar, duulitaanka qofka inuu magaaladii uu jooga ka safro, kadibna magaalo kale uu markaa u safro, taana waa lagu fasiraa. cadow ama bahalla ku cersanaya haddaad ka duushana, cadow aad ka badbaadayso ayaa markaa lagu fasiraa insha allahu tacaala. riyada labaad waxaa weeye buu yidhi, waxaan mararka badan ku riyoodaa anigoo kaba la-aan ku socda suuqa ama wadooyinka, anigoo cabsanaya oo isleh tolow cid ma ku arkaysaa. waana riyo igu soo noqnoqota in badan. ii fasir sheikh, jazaaka allah khayr. taana maxay noqon kartaa? koba la-aanta waxaa lagu fasiraa dembi la-aan. qofku dembi uu galo uu ilaahay ka cafiyo, uu ka towbo keeno, taana markaa waa lagu fasiraa. waayo sababta waxay tilmaamaysaa baa yidhahdaa salaada, inkastoo la ogolaya koobaha marka gobolka mid in lagu tukan karo, haddana waxaa lagu tukadaa inta badan koba la-aan, waa dembi dhaaf. tawaafka inta badan kaba la-aan baa la tawaafa, ama sideedaba iyo wixii markaa lamid ah. marka riyo fiican waaye, ma lagula yaabayo. midda kale, waxaan ku riyooday, waxaa ii sheegay in beri ay ciid tahay. waxaan ku riyooday waxaa la ii sheegay inay beri ciid tahay. waxaan bilaabay inaan diyaariyo sida dhar cusub
oon iibsaday iisoo fasir biliis sheekh ilaahay ha ku barakeeyo maxay noqon kartaa xaaladda noocaas oo kale ah cidun waxay noqon kartaa bishaar iyo farxad qofka kusoo ziyaadi doonta ama risqi ha noqdo ama khayr kale ha noqdo ama ilaah subxaana wa tacaala wuxuu ugu talagalay oo wanaaga ha noqoto wax fiican oo wanaagsan ayaa markaa lagu fasiraa midda saddexaad assalaamu calaykum waxaa waraxmatullahi wabarakaatu sheekh xasan ibraahim ciise waan kaa qaaday waa ku salaamay sheekh inaad fiican tihiinna waan rajaynayaa dhammaantiinba waxaan rabay inaad ii fasirto riyo insha allah waxaan ku riyooday ninkayga oo naagtoo horay uu u furay ku soo noqsanaya anna waan ku soo booday xataa hurdadii baan ka soo kacay anigoo masayrsan maalmahaas oo dhan shakiya igu jiray waxaan filaa riyadani waan soo marnay mar dhow waa soo aragnay dib bay usoo noqotay xaggaasaana kusoo fasirnay waxaan kaloo ku riyooday anigoo masaajid ku jira salaad dukanaya laakiin waa ka soo kacay intaana tukan ayaduna waa soo fasirnay saake salaadii subax kadib ayaan jiifka ku noqday waxaan ku riyooday bustihii aan ku jiifay oo caara ii saaran taana waa soo fasirnay meesha ha inoo joogto qaybaha xiga ayaan ku dhammaystiri doonaa wabilaahi towfiiq wallahu subxaanahu wa tacaala aclam